war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagaga hadlay arrimo la xidhiidha qalabka casriga ah ee iskaanka ee lagu soo kordhiyay dekedda magaalada Berbera waxaana warbixintan oo ka koobnay 7 qodob ay ku bilaamaysaa waxa maalmahan dambe baraha bulshada lagu baahinayo warar xaqiiqada ka fog oo ku saabsan aaladda baarista konteenarada ee loo yaqaan container scan ee lagu soo kordhiyay marsada caalamiga ah ee Berbera kaas oo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo dekeddeena wasaaradda horumarinta maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay guud ahaan bulshada iyo ganacsatada wax kala soo degtay waxna ka dhoofisa marsada caalamiga ah ee Berbera ay u cadeynaysaa in shirkadda Sahal Touch ee eedda loo jeediyay iyo cidda kale ee la sheegay in lagu naasnuujinayo adeegan cusub ee lagu soo kordhiyay dekedda Berbera aanay jirin balse uu qalabkani uu yahay qalab qayb ka ah casriyeynta iyo fududeynta habsami socodka shaqada si la mid ah dekedaha dunida adeega aaladda baarista ee iskaanka ee lagu soo kordhiyay dekedda Berbera waxa wax weyn ka tari doona ayaa lagu yiri warbixintani fududeynta hawshii baarista badeecadaha tafniidka oo 70% yaraanaysa 2 marxinta waqtiga iyo baarista gacanta ahayd oo meesha ka baxaysa haddii uu iskaanku aanu wax shakiya muujin 3 ilaalinta amniga iyo badbaadada guud ee dalka iyo wadamada ay badeecaduhu u gudbayaan 4 badeecadaha oo toos uga baxda marka ay iswaafaqaan cadeynta badeecada declarationka ganacsadaha iyo natiijada iskaanku soo saaro iyadoo oo looga baaqsan doono baaristii badeecadaha tafniidka iyo waliba burburkii alaabta soo gaari jirtay waqtiga baarista 5 ganacsatada waxa u baaqanaya kharashkii lagu bixin jiray xamaalista badeecadaha xilliga baarista 6 ilaalinta cashuuraha ee qalabkani uu sheegi doono nooca badeecadaha konteenarada ku jira 7 koruqaadista kalsoonida iyo isu gudubka badeecadaha ee dalalka jaarka waxa kale oo iyana warbixintani lagu sheegay waxa kale oo iyaduna xusid mudan in qalabkani ay inoo maalgelisay isla markaasina ay damaanad qaaday sponsored shirkadda DP World FZCO oo ay wasaaradda horumarinta maaliyaddu heshiis la gashay khidmadda yar ee adeega la saaray konteenarada aaladda dhexmaraya ay dabooli doonto kharashka muhiimka ah ee ay ka mid yihiin deyn celinta maalgelinta caymiska aaladda iyo dayactirka qalabkan casriga ah ee la soo kordhiyay waxa kale oo aanu cadeynaynaa bay tiri warbixintani in aaladan la marinayo badeecadaha ku jira konteenarada oo kaliya oo aanay khusaynin badeecadaha kale ee qubanaha bulka ee marsada dekedda Berbera ka dega ama ka dhoofi waxa warbixintani gabagabada lagu yiri waxaanu rajaynaynaa in dadka aan xogagaalka ahayn ee siyaasadda halkan ka dayaya in ay ka waantoobaan been abuurka iyo balasheega oo ay garab galaan dadaalada iyo horumarka ay wasaaradda horumarinta maaliyaddu ay wado iyo guud ahaanba wasaaradaha dalku si aynu u hiigsano ama aynu gaarno ilooyinka wadareed ee aynu hiigsanayno war-saxaafadeedkan ayaa waxa uu ka soo baxay waaxda xiriirka dadweynaha iyo xogta ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland